daawadayaal kusoo dhawaada TV-ga Universal Studio ku leeyahay magaalada Hargeysa oo idin haya barnaamij la magac baxay toddobaadka iyo shaqsiga iyo toddobaadka. Barnaamijkan shaqsiga iyo toddobaadka waxa aynu ku soo qaadan doonaa oo aan dadka amba bulshada Soomaaliyeed aan ku bari doonaa hal doorka umada. Barnaamijkan waa markii ugu horeysay aad ka daawan doontaan TV-ga Universal waxaana marti inoogu ah Engineer Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID ee Somaliland oo ah siyaasi caan ah oo laga yaqaan geyga Soomaalidu ay degto dhan gaar ahaan Somaliland. Faisal Cali Waraabe totalis waxa darta ku taqaaneen inaan ka wareysano amba ay wariyaashu ka wareystaan amba uu ka warramo siyaasad. wax siyaasad oo barnaamijkeena aan ku soo qaadanayna ma jirto waxaan ku soo qaadanaynaa waxyaalo ka duwan. Faisal waxa uu jecel yahay waxa uu neceb yahay maxay arrimo qoyskiisa la xiriira yaraantiisii waxbarashadiisii cid uu saaxiibka leeyahay waxyaalo badan oo aad tabeysaan inaad Faisal ka ogaataan ayaan rabnaa in maxay haydeen barnaamijkan aan ku soo qaadano shaqsiga iyo toddobaadka gudoomiye Faisal Cali Waraabe ku soo dhawo TV-ga Universal iyo barnaamijkaba. Gudoomiye marka hore waxaad nooga warantaa bal oo aad dadweynahana bartaayo umada Soomaaliyeed ku daawanaysa xageed ku dhalatay? Hargeysa ku dhashay alxamdulillah. Haye أنا Hargeysa ku dhashay between 49 to 52 meelahaasaan adoo dabaashaha maadaama dheedkii la garaneyn halkan isku hoose ka galay kii dhaxay waxaan ka galay barna Hargeysa barna Boor baan ka galay dugsigii sare waxaan ka galay Xamar la foole ka bacdi jaamacad baan u aaday Russia waxaan soo bartay civil engineering waxaan ku soo noqday dalka Soomaaliya 73 aakhirkiisii xalan aan galay ka bacdi baydhaba ay bedelay civil engineer ka magaalada gobolada Bay iyo Bakool iyo Gadaa noqd galay after a year waxa laga dhigay magaalada isku duwaha gobolka Gedo oo markaa la abuuriyay hawlaha guud laga dhigay Xamar baan ku soo noqday 76 waxaan noqday magaalada director-ka planning-ga iyo dhulka damaanayada andana 81 baa laga dhigay magaalada chief engineer-ka Banaadir laga dhigay 84 baan dowladda ka dhisan gareeyay waxaan sameeyay shirkad la yiraahdo Ayan Construction Company ilaa 90 baan shirkadda haystay chairman ka bacdi waxaan u qaxay Finland maxay qaban jirtay shirkadda guryaha dhis jirtay inaan guryaha dhisan si iibin jiray kas housing wax la yiraahdo baan sameeyay jiray adoo markaa noloshay inteeda badan waxaan ku qaatay Soomaaliya Somaliland 65 bay ku dambeysay si rasmi ah marka gudoomiye waxbarashada lagu jiray ee dhalinyarada la iska yahay arday badan oo wiilaliye gabdhaba leh ay galaas kula wadaagayaan way ka duwan tahay marmarka kale oo waa dadku waxay inta badan xasuustaan dhalinyarnimadoodii markay iskuulka dhigan jireen maxaad ku xasuusataa iskuulkii markaad dhigan jirtay dhalinyarnimadaadii tan waqtiga aan galnay waxay waqtigii aan habluhu aanay iskuulada ku yaraayeen Soomaaliland oo kale markaan iskuulka galay waxay jiray way kala qaybsanaayeen iskuulka Riis baan ku jirno girls schoolna dhinac buu ahaa nagu nabna boys schoolna dhinac buu ahaa intermediate-kana ma bay soo gaari jirin waxay jireen markaa hablaha intermediate school gaar oo Burcay tagi jireen iyo Hargeysa dhinac bay ahaan jireen co-education waxa lagu bilaabay 1965 kii baa 65 baa lagu bilaabay marka intermediate waxa la baan dhigan jirin markaan secondary galana hablo way nagu yaraayeen la fool ma ku jireen iskuulka antig la oran jiray I think saddex hablood ku jireen marka hablo way soo gaar jireen high schoolka marka iskuulka anoo markaa galay high school
kii marka dambe Lafoole jaamacadda noqday hadda Lafoole idhaahdo ahaa waxaa gacanta ku hayay magaranaysaa Maraykan baa ku hayay waxaa school systemka Maraykanka buu ahaa marka waxaa marka aad ku jeclaan xagga sportiga anu waxaan jeclaa long tenniska ayaan ciyaari jiray long tenniska ciyaari jiray laakiin anu from my childhood waxaan jeclaa readingka books baan ahaa markaan waxaan chance u helay markaan iskuulka helay inaan access u helo Newsweekta jirida iyo Timesta iyo Reader's Digest iyo magazine Winter Life afartaas ay ahaan jiray magaranaysaa aadan akhri jiray akhrin jiray iyo novelada aan aad u akhri jiray waa gartay dhalinyaro ayaad isku galaas ahaydeen arday ah wax ma ka xasuusataa in fact horta markaa dhalinyaro caan oo hoosteed adigu imika aad Faysal loo wada garanayo aad isku galaaska ahaydeen oo la garanayo noo sheegi kartaa ma jirtaa in fact marka la eego iskuulkii hoose markaan galnay waxaan ka xasuustaa Xasan Ciise Jaamac Maxamed Cumar Xaashi isna ku jira ku jira waalisa markaan galnay high schoolka Axmed Cabdi Dacar baan naqaano hadda isna scholar waxaan galayaa Cabdisalaan Yaasiin isna mar jaamacad oo noqday Barco iyo Hargeysa ka noqday gudoomiyaha ragga iskuulka soo gaadhay marka waxaan ahaa activist baan ahaan jiray marka jaamacad galay high schoolka waxaan ku jirnay guddida ardayda oo la dooran jiray baan ka mid ahayn I remember inuu Cabdisalaan Yaasiin ahaa member of the guddida committee kooda jirnay waxaan xusanahay inagoo wali ku sii guda jirnaa waxbarashadii iyo dhalinyaronimada iyo iskuulkii ardayga macalinka wuxuu weydiiyaa marka galaaska la dhigto maxay hayday maxaad ku hamiyeysaa maxay markaan weynaado waxaan noqonayaa dhakhtar waxaan noqonayaa pilot waxaan adigu markaad yarayd maxaad ku hamiyi jirtay ee dambe iskuulka dhigan jirtay aniga waxaan ku hamiyi jiray marka aan iskuulka jiray in fact waxaan saxaa social policy social science kan jeclaayo inaan professor history and politics aan noqon jeclaa laakiin weliga laakiin markii aan jaamacadda galay Russia waxaan arkay inaan ruushku aanu xagga social ku fiican marka waxaan doontay engineering civil engineer baan doontay isla marka handana inaan politics ku jiro maadaama aan family politics ku hadiyo guriga laga sheekaysan jiray siyaasadda aan ku soo koray guri siyaasadeed igama maqnaan jirin xagga siyaasadda markan jaamacadda galay saasoo kale handana aan guddiyadii jaamacadda Germany oo noqday ardayda Afrikaanka ee ka dhigata magaalada Russia aan noqday iyagana mar baan u noqday madax u noqday marka weli kama maqnaan xagga siyaasadda markan ardayda ahaanada activistka sanaha waxaan markaan joognay Lafoole waxaan ardayda mudaharaad ka dhigtay ku mudaharaatay Nobel ugu tagay aadan cadda magaalada saayidka Germanka aanu ka soo horjeednay we don't know why waa xisbi SDU naga dambeeyo nadariyay marka always waxaan aanu very active bana xagga magaalada saayid mujtamaca baan ahaa dhalinyarnimadii inagoo ku jirnaa scout-kii baan ahaa boys scout-kii baan ku jiray inagoo weli dhalinyarnimadii ku jirnaa way iska waayo badan tahay dhalinyar marka la yahay weli ma raacday qolada maafiyada oo kale iska rabshadaha ardayda klaaska maya waxa raacada dadka background-kooda ma taqaanaan fiicnaan marka la iska yahay background-ka qofka ku soo koro background environment qofku soo kora ayaa wax weyn ka tartaa magaalada qofka soo koro ma ogti marka dad guri violent ku soo kortay iyo guri bila aaba ah ku soo kortay iyo magaalada saabi laga yaaba inaan noqdo raf laakiin hadda ku soo guri dhisan oo family fiican ku soo tacaruurto markii aad maxay hayday iskuulkii ka baxday shaqadii kugu horeysay aad qabatay waxaad noo sheegtaa markii kugu horeysay haasaabo bilowda hasawa waxaan ku bilawnay markaan ishaib iskuul ku jirnay waan ku hasano waxa jirtay shiriid soo bixi jirtay oo magaalada saayaan soo saari jirnay markaan ku jiray Lafoole article aan ku qoray baa jiray buur Lafo ninkii jeclaa faqiirkii jeclaaday oo aniga iska haliyay oo inan markaa aanu isnaqaanayo aabahey director ahaan jiray director generalka ayaa an
isku dayi jireen isbarano oo gaari waayey marka hasaab halkaasaan ku bilaabay dadna adaa fiqirahayo marka iyada la eega ilaanu waxaan tagnay xamaroon ku nahay ajnabi xamar waxay ahayd Somaliland waxaan ku ahayn marka habeenka gobolka uu dhaco oo soo lugeyn jiray ilaa college ma ehel ana saxana ma jirin waxyaana wax dambiyadii la naga galay kamid tahay meelan inaan u doorno secondary school xamar u doorno ana u dikeen iskuulkan marka jaamacad laga dhigay xabadi keenta la mudaharaad baan ku keenay waqti marka hasaab halkaasaan ka bilaabay insha Allah taala la dawrada isku qori jirnay aad iyo aad markaas maxaad ku gaari weyday marka laga yimaado dhinaca fiqiirka iyo kaayar level saraysay wali maslaxada sheeno ma la kulantayo ma u yeedhayo meel ma wada fadhiisatay wallahi waa suurta gali weydaa waa su'aalka hada wala ilaalin jiray dadka siin markay adigu xorta u tiin baan ahaan jiray hablaha wala ilaalin jiray ma ogtahay xitaa waxaan garanay isaan inanta u aragna maaran inaanu guriga hortooda rabshad ka sameeyo si la noo kala qabto midka guriga la geliyo ma ogtahay halkaas saaxiibka aan iska dhigay si wax isdilay ma ogtahay rabshad dadka wada guri jirtay guriga si la noo kala qabtay nimada la yiraahdo marka la kala qabtay in soo baxdo hadda abaad tahay xaas baad leedahay isaad isku barateen xaaskayga fani way saan isku baranay horta anu marna isma oran jirin hablaha Soomaaliya ku guursan jirta nabs bay qabtay ma ogtay nabs ay qabtay marka maan waxaan hadii goor waxaan ku taajiga hablaha reer Soomaaliyeed baan isnaqaanay inta xalana wada galay alxamdulillah xalana ma kan galay shooyuna waxay ka gashay civil servant ka waxay ka gashay qaydabada la ii bedelay marka habla Soomaaliland oo saaxiibihiin xalan isku barteen ayaa soo booqday iyadoo civil servant ku jirta hablihii ba marka oo inta la inta wax qorqortay Shams Hawa oo taqaana Shams Hawa soo isku barteen oo timi marka hablihii ba marka ku soo degay ma haystiireen waxaan rabnaa Faisal engineer Faisal hablihii ba adiga ku doonayay ay doonayay iyo wasacdo ii yimaade xafiiskii way ugu yimaade hablihii baan la ballan aniga nin saaxiibnay marka ninkan generalka ka ah loo dhibay maalintii Amazon loo dhibay general Subagle reer Djibouti sabaxa reer Soomaaliya ma kori jira oo saaxiib wada halo kalena hablihii baan labadeedii la ballanay oo casho geynay intii hablihii nala joogeen ayaan iyaduna soo raaci jiray hablaha kabacdi halkaasaan inanta isku baranay inanta habeen marka tagan iyadoo hadda isku kay soo hadhay habeen inkee loo kala hadhay reer Baydhabo loo kala hadhay halkaasaan horta marka inanta halkaas isku ka dhigi jirtay tawakkal Ilaahay isku kay barakeeyay alxamdulillah rabbil aalamiin alxamdulillah Ilaahay isku kin barakeeyay ma xasuusataa watiya warqada la isku qorasad horaba u sheegtay markii barigaas imika Facebook iyo waxba soo baxayo hawla kala iskaga qoraay warqada wali waxa ugu qortay ma xasuusataa ma warqada iyada ma qorin laakiin mid aan isku qori jirnay jirto markay dameynta isku si aan jeejebiyo jeexjeexo lumiyo faal laga sii marka jaamacada ku jira raashin Finland isnaqaanay yani love letters isku qori jirnay taas waa laakiin inantan jaar baan heeno waa halkaas hadalkaas la tigsan jiray waan gartay hadda imse ciyaal isku leedii alxamdulillah rabbil aalamiin sagaal baan isku leenahay ma sha Allah inan adiga ku eeg baan leeno faado baar la yiraahdo leenahay alxamdulillah xilli mid baa isku gursatay 1976 baan isku guursanay inan kay 6 sano ka weyna okay alxamdulillah ma sha Allah tabaaraka waxaa jira qof walba wax xiiseeya imika qof hadaad wax weydiiso tiraahdo suugaanta sideed isku tihiin wuxuu moodayaa in balaayo kale iyo wax kale lagala hadlayo adigu wali suugaanta iyo sideed isku tihiin xagga fanka anuu fanka isku fiicnay anoo yar baba lagu yiri walaalkiiba anuu horta faamigay waa gabayaa meelan oo ragga taariikhda Soomaalida ku jiray gabayaasha muslim faamigay ka soo jeeda laakiin aan la anigu mala xagga abtiyaashan wala abtiyaashan waa gabayaal fiican beliya leeyihiin anuu baaka ma aqaan bariya lagu yiri boqol shan baa ku soo tix gabay tiri ma aqaan heesana
dadka music aad u dhegeysanayaan si hore qaraamiga ahaa dhegeysan gaarigaaga kolna wax ma ma gaariga beriga xamar tooba yar dirowga saari jiro oo ka baqtin jiro wala arsaaqa tagay naga joojoona jiro waqti marka ma xifaainta xitaa ma fanaaniinta ma kala aqaano in fact ma aqaano ta wadaniga dama dhageystay ma dhageystay ano yusho wax baan akhriyaa ano my time waxaan ku akhriyaa timekay wax baan ma akhriyaa marna quraan baan iska akhristaa marna waxaan iska akhristaa buugta kale marka ma dhageysto ma aqaano heesaha sidaan ognahay burburkii dalku markuu dhacay aduu nin qurba joogaad ahayd oo qurbahda in badan ku maqnayd qurbahuna uu iska hawlo badan yahay weli ma kugu qabsatay inaad cunto karisid anigu 18 jirkii baan ku tagay qurbaha waa cusbeen IT markaan jaamacadda tagay marka in reer Boorama room wada jeer galaynay marka waxaan ku yiri aynu cuntada karsano cuntadii waxaan okay kaan maan bu karinaya maalintii aan kariyo wixii hooyadii aan ka arki jiray baan kariyo it was all right waan iska cunay maalintiisii uu kariyay waan u bogi waayay moogtay digsi iyo raashin ku jira daaqadan ka tuuray طبعا افراد هي isku dhaxwalaaq weyn oo kariyo waa wada garow moogtahay hay da marka waxay ugu qabsatay ilaa marka jaamacadda ku jiray film 18 marka dad hurdiyada ma qaadin kartid marka waan karsan jirnay baradaan sheeshiilna marka wixii ka dambeeyay adiga karintii ana karin jiray alxamdulillah wili qoyskaaga ma kariso cunto qoyskayga ma yoma tarin ma karin intii markan iyaga wax karin jireen soo teemka aan ogaanay markii la qaxay dumarka kala baxeen tii wax aqoon soo baxeen dumar wax u shaqeyn jiray hablaha u shaqeyn jiray marka habli la waayay idinku sameeya qaar ba cuntooda la cuni waay marka qoyska ma waan kale wax noo shaqeyn jiray shaqaale shaqeyn jiray staff ba jiray and Faisal marka la yiraahdo siyaasadda caanka ku tahay iyo engineer Faisal Cali Waraabe marka laga yimaado waxaad caan ku tahay hangool hangoolkaasna meel walba waad la tagtaa weli diyaaradna la fuushay hangoolkan 1995 kii ayaa la igu siiyay meesha la yiraahdo gaashaamo markii gudda nabad ahaa nin xaaji jaamac la yiraahdo la siiyay oo reer gaashaamo isna aan u siiyay kiimiya kiima aan ku wada markuu saal igu dhiibay ayaa ilaahay message ii soo diray dhag message-kii message-kii baan hayaa marka message-ka waqtiga yimaadaan sheegi doona insha Allah taala caawna ma sheegi karo message-kaas 99 kii marka aan keenay fact finding mission qolay European ka Soomaaliland soo eegayaan inuu laga shaqeyn karo hangoolku wuxuu iga lumay maano siyaarana maalin bariga meesha Gabiile markii la lumay baan ninaan saaxiib reer Gabiile oran jiray abi filfil mana wasiirka aan jiray ayaana ila warbaha hangool bay ka lumay Gabiile hangoolka ay halay keeno mid buu soo sameeyay kii uu yaala kale marka 2001 intii ka horeysay waxaan la diyaarada waan la fuuli jiray laakiin 2001 ka xiga dambeeyay waxa la yiri amba taag u samee ala raray amba shandadan ku ridan marka way badan yihiin bahalay marka islaan joogta agabar waxay soo sameysay 14 hangool bay soo sameysay oo todoba isku xidhay way ka soo sameysay geedka garawaaga laakiin kuwan qaata waa nooc ba kaliya qaar waa madaxweynaha leeyo markuu wasiir ayaan islaam ku soo dhaftaa imika waxaan islaa marka shirar xasaasi waxbaad gashaayo waxa tahay de siyaasi weli inta xanaaqdo qof ma ku dhafatay maalin uu siteen wasiir ku soo dhafto ya nasiib nin agada joogan la hadlo ka saan waxaan ku sii socdaa hebelo beerta ay ishii waan ka hadla dadka ma ay waxaan ka hadla wixii xun ee wadadii waxaan ka hadla markaasuu yiri kada awta ku dhafan ana la kala ku dhaxbo marka madaxweynaha soo leeyahay kaas halkaas uu yaala midna qamiiska loo ka dheer jamacan qaata midna shandadu galaayo markan baa kala qayqaybsay marka shandada ku gala qamiiska aad u qaadatay imika dharkaad xidhatay kan baad u seetay ma kan waa kan magaalada joogo
wax original ayaan lumin dhowr baan meel ka kacay moogtay qaar taxi abdoo mid baan ku ilaaway laba jeer baan bahalka khatar igalo marna abdoo baan ku weelaabay taxi marka hodheelka alcayn alxayaad buu hayo show wax leeyihiin kamaradii security-ga xafiiskii baa la geeyey waa la ii daaray waqtigii baan ii eegay anigoo waxaa ka soo baxay ka degaya taxi baa soo baxay taxi waxaa la akhriyey taarkiisii dambe yaa la akhriyey companiga lahaa baa la gartay telefoon baa loo diray waxaa la yidhi magaranaysaa ninkaas waxaa kaga tegey bakistani buu ahaa wixii qori bilaamicaan moodiyo waxaan ku tuuray suuqa weli Faysal cid aad isku eegtiin ma aragtay mise lagugu sheegay aniga de waa hindida bakistani intaa lagu sheegay laakiin qof isku eegtiin weli ma aragtay mayda laakiin dad aan la imoodo dad aan la imoodo ilaa Faysal nafta nagu kaa keenay oo adoo ka moodo reer Somaliland waan arkay markaad ka hadlaysid Soomaaliya si yar waxaad uga hadashaa adag xididna la tahay gabadhaada Soomaaliya ka soo jeeda guriga markaad timaadid ma ku tiraada maxaad sidaa ugu la hadashay wadankayga amba dadkayga تقول تسوي إيمان سؤال شاسع واتماطة لكن ده الصومالي يقول كمان أنا رنت وحي أنا أركينا قلديين كما أمسكر رنت ولا شيء أنت اعتقادات ده الصومالينا نفط رنت ما له شيء لكن حمان أنا نيجي الصومالي سنة الصومالي ارتمشرو سواء أنت أنا الصومالي وهلا إذا مشرته لكن وحلا إنه هذا تسامح دي احترام ليه ما احترام الوقت أدام كويس صو ما صو فالحمام أنكو حقره أو رنت هذا أنا قرن واحد هاي أنا قرن فيصل مركز عروتين سداد مقطع أنا ما عريضه حلقة وقرتها كعلو سنت ما قرص ده أنا تيجو ما كان جامعة كل شيء وحيب حين بروفيسور فيسوى كبريت هل بوري لكن مركز قدامي أنا ما عدت على وجه كسته لكن وحنا هاي ما طمق على كلام تقانا ما رعدوا كلام الموت ما رعد زوي حلو كل واحد ما يحس ما كان مدت كان مطون لكن حلقة وقرتها مركز على سنتين مركز دوان قريرة ساسا ما أبين ساسوا عمك ما يربو بورتاي ما يوان قريرة مع أبين ساسوا لا لا مركز فرح سنتين مركز ما فرح سنتين قلت يا أنا مركز ده ما حنا إنك فرح سن تلفون هذا مر والبا سال جوجل هيك تلفون كمان حرتها أدون كذا وحنا عاي إمك دولتنا وحنا منطقة على دولة إلها دولة واحد إلها تلفونك صاغر على واحد يا مال دولتنا قف مسؤولة وتلفونك يسحر مسؤول معه أنا حدتك وعلى ما كقبضها حدتك وعلى ما أنت قبل بان قبل أورتي صوب على موقتي أنا كقبل وقت هو كونشيس كيقولوا وبكا موقت كونشيس وبكا موقتها قف عدو كسر نفط هذا هذا تقف لقى قاعد واعي how you feel so disappointed ما قفك وين قفك سيدا وحي وديدو dadka aan ogaan ku sameeyo dadku bulshadeena Soomaalida inta badan imika carabtana wayna raacday Yamaniye waxay aad u isticmaalaan ay cunaan baalka leeyahay qaadka wali ma qeesh أنا waxaan rag u qeylata badnaa xamar markaan joognay saddex nin baan ugu qaaday badnaa كوبي سكاشي ما كان سكاشي ما كان قحي واحد يقول روش بان من واحد يقول وستنا قاعد بلقيها waxaan sii qaatay bahalka ilaho waxa la oran jiray shooyadiro magac u bixin jiray ma saqaato ilaa 20 barduufa oo la inta raashi ka tagsi wasanka أتسعد أنا إيران كنت دوما كقنصل كها موسكو أفر مالون شو أفر تمالون قليل اللي فنلند ما كنت جاي قاعد كوا كمان كوبي تمبلو من قاعد كان أنا كوبي تما كبلو وان والله واحد جاب بحي مركين كوبي تمبلو شوقي أنا هلا بها يرو ترافل أيدير أو أنا سير كرسكو أيوة تصدق أيام اللي يسون بالقونا يسون من دونه راعي كون كود دجاج كون قاعد كانون نلي أشام يسون برنامج أوها إن أهانشري كوميش أو أهانشري ونحمل كود قيشري يعني تلفون الدرج
horan niman qaad cunay baan kusoo degay qaad ii sii diyaar gabaraan baan ku yidhi waa la iqaaday saa la ii geeyey meel fog ugu jiray 12 habeen aan gaadhay baan miiro ii soo dhigay saadu ii soo dhigay ayuu jirkay maase bixiyay show selskin intay ii noolaaday saasuu baan iska duway markaas laan maqaleen maanta qaadi ku dambeysay argiisa baan inaan ag fadhiistaba adigii weliba u soo maray safar aan safarka oo intaas dhan u sugay inaad haddana waxa dadka waxa qaadku waa wax ina baabiyey 1950skii waxa abtiga ii sheegay in nin barasaab oran jiray cadowgiina waa cadow quraaleed ka soo jiray waayo waxay waa qaadka ma xabashay oran jiray ma xabashay ma waa qaadku oran jiray maanta reer Soomaaliland waxa qeyrkood aafi in wax u qabsan weyne Soomaaliland baa ugu ilbaxsaneed ugu taajirsaneed ya ugu horumarsaneed maanta inaga dadka u liidana waxa qeyrka inaga reebo waa qaadkana haddaan la dagaalamo sida darogada loo dagaalamin wayna baabiinaya qaadka waxaa la sharif baa la cuni jiray marka la dhergaa la cuni jiray lagu yara sheekaysan jiray weekendka la cuni jiray subaxdiiba ka la bixinaya qaadka drug waxaan noqonay addicted society waxaan u baahanay inaan sameeyo centers rehabilitation loo sameeyo oo dadka qaadka laga hadayo dumarkii ma la daweeyo inta meel waalidin dadkan waxaan ka fikiray maxay Soomaaliya cunto wanaagsan u samaysan weydi nightka baa inaga cuntadii waay waxaan ogaaday inay kuugto dad waala wax u kariyaan qaad cuntada ma dhantay ma dhowda ma diyaar ma tahay soo deguma yaqaan soo dhig dhankeeda ma yaqaan taas waa cunto xumaanta maanta cuntada ilaa halkiis too taagantay marka mushkiladaas haddaan ka dhigin cuntada inaga ku sii dumarkeeni caruurta waxa ma ka taqaana caruurtiisii markuu qaadka cuno caruurtiisa aan haysan oo quraxis iyo qaad cunaya markuu qaadka cuno soo hooyanaya xaaska ona samaa soo qaada caanihi wuu ku soo qayliso ma xaaskii budilaya waa mushkiladeena baatinaysta inagoo cuntadaas isii wadayna cuntooyinka nooc jecesha anu marka waxaan jeclahay in fact waxaan jeclahay kalluunka aan jeclahay hadda kalluunka jeclahay gabalka yara hilibkan jeclahay inta bila hilib ma ka doodi jirnay waqti شاح واحد ولا يقانا واحد كلام عبانو لبتون تيجان عبانو شيء كان كوقات هاي ولا عدسة ني بس عبانو قف أدونكو قف البس صاحب الدولي هاي أدوك يد سلاد هاي صاحب كاجا كو قد وما عتدنا نشوفنا واحد صاحبك يقول هو حاس كذا ما شاء الله كوني ذلك هو إيكول فوت كمان يعني واحد صاحبي أنا لو متقانا markaad balwad leedahay qofka ayaad balwadda isku saaxiibaysaan qaadka dadka isku sheeka jeceshaan laakiin markaad qaadka balwadda iska daysid dadku waa ku markaad siyaasi tahayna dawlad dadku u dhow dadka xusbigaaga laakiin markaad nin qof la isku qaayaxantaa wuu yar yahay fact la isku qaayaxantaa siyaasadda ma ka mashquulaysaa qoyskaaga xagaan iga qosan waxa caruur igu dambaysan 92 ما يحلى لا وقتها استغفر الله انا وكان مشغول صاير مره هدان ما حاسكي عروتيدي وتا markaas aan wax u deysanahay caruur ma kan arkay ilmo yar abiyo tagiyo wasiir la caruurtayda ba graduate gareeysan u tagiya ana caruurtayda graduate ma tagin waalidkay ma aasin caruurtayda kindergarten ma geynin ilaa 92 Soomaaliland ma ka shaqeynay this my baby Soomaaliland ana taas aan meel koobsada mustaqbal inay dadka masaal ay sameeyaan doon insha Allah taala gabagabadii anagoo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga qaaligeed siisay maxaad isleedahay injineer Faysal Cali Waraabe dhalinyarada iyo ummadda waa uu uga tagayaayo waxa maxay haydo waa lagaga dayan karaa أنا واحد شعله إن state modern states ده وطن عصري عن إذن إثناء سيس كود رجال ما أنت رجال ولا كهري الدولة ما قرنية النظام قرنية وحيلا كبر سبحانه وتعالى السومال لأنه كوب سنة إلى الحرية أو الاعتراف سنة إلى نفتك القاضي تسمى أنا objective كان أو إيمي دلك وإنا نسمينا كقيب قناة دولة سومال أو حرة وعداد كل سنة أو كتابك إلهي سنة رسولك عليه الصلاة كل شيء يسوي. إن شاء الله. أنا مولود كان ويمي
horta waa taas kaas baana weeyaa inaan ku camal fiican oo aakhiradeeda ku daro oo nabi maxamed jaar ugu noqdo inaan Soomaaliland ka qabtaan jecel insha Allah taala aad iyo aad baad mahadsan tahay gudoomiye injineer Faysal Cali Waraabe waqtigaaga qaaligeedna siisay iyo barnaamijkan oo aad marti noogu noqotay oo noqotay qofkii ugu horeeyay Daafura aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waana ku soo dhaweynaynaa mar kale aniga iyo dhammaan akhyaarta kale TV-ga Universal nolo mahadsantaan waxaan ku hambalyeynaya studio wanaagsan sameeyeen waxaan ku ilaa dadkeenu ma yaqaan innovation-ka waxay soo saareen laakiin ma qurxiyaan laakiin waxay muuqataan innovation sameeyeen adiga teamkiinaba waan ku hambalyeynaa daawadayaal barnaamijkeeni shakhsiga toddobaadka oo inoogu martay ahaa injineer Faysal Cali Waraabe waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Soomaaliland UCID ayaan intaasi ku soo koobaynaa totalis barnaamijkan wax siyaasadda ka kamaanaan hadlin maadaama oo injineerka looga bartay mar walba in laga wareysto siyaasadda amba uu ka hadlo noloshiisa khaasatan iyo shakhsiyan ayaanu waxyaalaha uu xiiseeyo waxyaalo badan oo barnaamijka ku daawateen aanu ku soo weydiinay oo ku su'aalnay aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa daawashadiina fiican ee aadna siiseen waqtigiina wanaagsan ee idinkuna siiseen aniga iyo dhammaan TV-ga Universal iyo oo ugu horeeyo gudoomiyaha amba agaasimaha TV-gan ee qaybta Hargeysa agaasimo Caabi Cali Xasan Sugule Khadar Maax dhamaantii waxaan idinku dhaafaynaa inta barnaamijkan oo kala ku kulmayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi